nolosha la wadaagtiin qof wanaagsan nasiibku markuu ku siiyo naftaada naftii fahmaysay waxaad noqotaa jilaaga caanka reer Hargeysa Cabdiqani isku filan iyo jilaayada caanka ayaan ka dhicin iyaduna Ikraan Sharmaakh magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waad ka qajilsiiseen Ikraan Sharmaakh dadkii oo dhan baa isla kan jeclaaday waa inaad diyaar garowdaa qurxay asxaabtu waad ila shaqayseen ayuu bartiisa Facebook ku soo qoray jilaa Cabdiqani isku filan oo sheegay in Ikraan wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa sheegay in jilayaasheenii qaaliga ahaa ee ay nolosha ku midoobeen jilayaashan ayaa waxay sheegeen in ay dadka Soomaalida isla jeclaadeen Cabdiqani isku filan iyo Ikraan Sharmaakh ayaa dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyay bulshada Soomaalidu aad u jeclaayeen jiliinkooda dhinaca riwaayadaha Ikraan Sharmaakh oo aan ka dhicin Cabdiqani isku filan ayaa jilaacana halkay riwaayado badan la soo jishay Cabdiqani isku filan riwaayadii u dambeysay ee taxanaha ee ay labadooduba ku matelayeen Marweye ninkeedii oo isjecel riwaayadan oo taxanaha oo ahaa musalsal bishii Ramadaan oo dhan soconayay oo ka koobnaa 30 xalqadood musalsalkaas ayaa falcelin badan ka helay bulshada Soomaalida musalsalkaas oo ay jeclaadeen bulshadu balse lamaanayaashan inaga qosliya ayaa maanta Jimcaha iyaguna farxay iyagoona yagleeli doona qoys muslima oo xalaala waxay yagleeleen qoys muslima oo xalaala waa jilayaasheenii qaaliga ahaa ee inaga qoslin jiray inaga farxin jiray ayaa maanta farxay haddaba haddaanu nahay Bahda Halhays Media waxaanu leenahay hambaliyo barakallah guurkiina guur khayr gurigiina gurinagi wiil iyo caano gabadh iyo caano qaabadiisa ka soo qayb galay dad badan oo ilyarto is qabatay xafladaas ayaa waxaa ka soo qayb galay fanaaniinta Soomaalida ee ku nool magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland haddaba waxaanu idin soo gudbin doonaa saacadaha soo socda qaabkii xafladda meherka jilayaasheen inaga qoslin jiray balse iyagu Jimcahan maanta qoslay inagoo soo gudbin doona xafladii meherka iyagoo qoslaya oo faraxsan inaguna maanta aynu la farxi doonaa fiidiyoga xiga qaabkii xafladda ayaanu soo gelin doonaa barteena YouTube ee Halhays Media fadlan ha moogaan fadlan u ducee commentiga ugu ducee wiil iyo caano gabadh iyo caano barakallahu barakalaka calayk nolosha la wadaagtiin qof wanaagsan nasiibku markuu ku siiyo naftaada naftii fahmaysay waxaad noqotaa ma ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka hadday jawaabtaasi tahay haa waxaa tahay qofkii ku habboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product haddaba daawade ka mid noqoshada ganacsigan shirkadda Forever Living Product kuma xidhna wax shuruuda aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 iyo in aad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilaabi kartid marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto kaliya magacaaga emailkaaga adresskaaga iyo telephone numberkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product waxaad helaysaa warqadii kontraktiga ee aad shirkadda la gashay ID number adiga ku gaara oo aad kaga adeegan kartid adduunka oo dhan hab online iyo off online si aad u doonatid waxa aad doonayso waa qiimo dhimis shirkadani ayay samaysaa qiimo dhimiska iibka aad samayn doontid oo u dhaxaysa 5% ilaa 5% ilaa laga gaarayo 48% maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product shirkadani waxay soo saartaa productyo ama alaabo loo isticmaalo isku qurxinta dumarka caafimaadka iyo miisaan dhimista ama miisaan kordhinta waxaana ay ka farsamaysaa geedka loo yaqaan dacarta oo hodan ku ah geeyiga Soomaalida iyo malab wax kiimika ahna malaha
waxaad samayn doontaa ganacsi adiga kuu gaara oo aad maamulatid aadna ka samayn kartid dhaqaale aan xad lahayn. waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo iswada caawimaysa. waxaad heli doontaa tababar iyo aqoons kororsi bilaasha oo friya si aad u gaadhid heerkaad doonaysid. waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintooda iyo qiimahoodaba leh. haddaba darajooyinkan aad gaari karto oo shirkaddan aad ka gaari karto maxay yihiin? sideese u gaari kartaa? waxay darajooyinkan ay ka kooban yihiin 13 darajo oo midka kale ay ka sarreyso. ta koowaad ayaa inaad noqoto assistant supervisor. ta labaad ayaa supervisor. ta saddexaad ayaa assistant management. ta afraad ayaa manager. ta shanaad ayaa senior manager. ta lixaad ayaa eagle manager. ta toddobaad ayaa soaring manager iyo safir manager, diamond safir manager iyo kuwo kale oo badan oo darajada kale ay ka sarreyso kana dhaqaale badan tahay. dhammaan darajooyinkaasi waa kuwo aad xaqiijin kartid midba midka ay ka sarreyso aad bay uga dhaqaale badan tahay. waxaad kaloo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo incentives oo ay ka mid yihiin forever car plan oo 3 gaari oo dalxiisa iyo 3 gaari oo dalxiis free lagu geynayo sanadkiiba 2 jeer. check-you magaciisa la yiraahdo German bonus oo lacago waaweyn dadka qaar mutaystaan oo malaayiin dollar gaaraya. German bonus waxaa la yiraahdaa oo ah in aad shirkadda ku yeelatid share joogta lacagaha trillions dollar ee ay sanad walba faa'iido aad qaybtaada ka qaadan doontid. shirkaddu haddii ay sanadkaasi dhaqaale faa'iido oo aad badan ay soo saarto dunida oo dhan waxa aad leedahay faa'iido adiga percentage ku gaara. haddaba haddii aad diyaar u tahay inaad ka mid noqotid ganacsigan baaxadda leh ku soo biir bahda forever living product kalena xiriir telefoonada shaashada ku qoran iyo WhatsApp linkiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. waxaa halkaasi kuugu diyaara dad khibrad gaar ah u leh iyo la taliyayaal ka caawin doona sidaad ugu biirayso iyo sidaad ganacsigan u suuq geyn doonto. ha moogaanin forever living product hadda waxa uu ku eegyahay gobolka Minnesota marka loo furo jaaliyadda Soomaalida ee wadankaas. inagoo soo gudbin doona xafladii meherka iyagoo qosliya oo faraxsan. inaguna maanta aynu la farxi doonaa fiidiyoga xiga. qaabka xafladda ayaan soo gelin doonaa barteena YouTube ee Halhays Media. fadlan ha moogaan, fadlan u ducee, commentiga ugu ducee wiil iyo caano gabadh iyo caano. barakallahu barakalaka calayk. nolosha la wadaagtid qof wanaagsan nasiibku markuu ku siiyo naftaada naftii fahmaysay waxaad noqotaa